رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا ميل والبض عالم كاتشوكتان كسو دوادا كنال كريغل ميديا وحينو كسو قادناي قيبتيني كوباد صلاة قيبتيني اللبادنا وحينو كسو قادن دونا لبا قضب او كلا صبرك يا أخلاق دو وناكسن لبدا قضبنا عدي لغا هلا صبر يو adkaysi yeenu sugnaado dhibaatooyinka qofku markay soo wajahaan yeenu akhlaaq wanaagsan oo ummadana uu kula dhaqmo ilaahina subhanahu wa ta'ala akhlaaq wanaagsan oo kula dhaqmo labada qodob cidii laga helaa adduunkana way liibaanaysaa aakhirana way liibaanaysaa aakhiro iyadu maaha goob laga shaqeysto wax laakiin adduunyadaada wixii aad ka shaqeysatid ba aakhiro wax ku goynaya hadaba hore aynu ugu socono barnaamijkeena qodobka koobaad ee ugu horeysiinayna waxa weeyaan waa sabirka sabirka micnihiisu waa in nafta la xabsiyo dhinaca sharcigana waa in nafta laga xabsiyo oo laga joojiyo waxa loo yaqaan jasca argagaxa arabkana laga joojiyo ashkatada jawaariixdana laga joojiyo waxaan waafaqsanayn waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka reebay hadaba nabi maxamed oo ah cid allaba abuurkii ugu khayrka badnaa ayaa waxa uu yiri siismo qofna lama siiyo ka khayr badan kana waasictinimo badan oo ka mug weyn sabirka lama siiyo qof wax ka weyn sabirka ilaahay dhamaanta sabirka aynu gaarsaaqo sabirka qofkii la imaadee laga hela ilaahay baa miciisa in allaha ma'a saabiriin ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ku leeyahay kuwa xaq rumeeyayo sabra oo sabarka ku tartama oo heegan ahaada iyo kuwa adkaysi badan xilka Allah idin saarayna dhowr aliibaantaane oo guulaysataan bimacnaa waxa kale oo Allah quraanka ku yeeri dadka saabiriinta ajarkooda waxa la siinayaa xisaab la'aan ba la siinayaa imaam ahmed bin hanbal imaam ahlu sunna wal jamaa waxa uu yiri saguna ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu quraanka ku sheegay sabirka 9 jeer sida awgeed adduunyadaada waa sabir bay u baahan tahay bimacnaa hadaa doonaysid inaad adduunyada ku liibaantid oo ku guuleysatid sabir ayay u baahan tahay hadaad ganacsi wado sabir ayuu u baahan yahay caqabado badan baa ku soo wajiyay laakiin si sabirka kaga gudbi hadaad wax baranayso sabir baa u baahan tahay inaad aseemadadaada ka soo shaqeyso homeworkgaaga dhammaan xiisadahaaga si fiican u joogtaad u timaadid sabir bay u baahan tahay hadaad beer falanayso sabir bay kaaga baahan tahay kosbaad gelin kharash baad gelin xoog baad gelin waqti baad gelin marka damax laga yaabaa wixii ku soo gaay haday doonaan ina ay maaragtay dalagii ka xumaado ama suuqu jababa marka sabir bay u baahan tahay inaad wixii aad ku celcelisaa ilaa aad ka guul gaaraysid wax walba aad qabanaysaa intaas waa tusaaloona sabir ayuu baahan yahay hadaba inta ilaahay subhanahu wa ta'ala sabir uu ku siiyay oo kugu arsaaqeed haysatid ayuun bay guushaad xaqiijin kartaan ay leegtahay sabirka waana loo dhashaa oo waana la baran karaa oo qofka sabir iska keenkeena ilaahay ba subhanahu wa ta'ala sabirka ku arsaaqa guusha aakhirana waxay ku xiran tahay waxa lagu faray oo aad ku sabirtid iyo waxa laga reebay oo aad ka sabirtid waxa laga hayaa nin gabya oo caraba ayaa waxa laga hayaa gabayu tiriyay waxyaalaha adag ee ay rag way ka soo istaagaan anigu waan fududeysan oo waan jeeri ilaa aan ka gaaro meesha liigsanayo dhammaan buu ku leeyahay waxyaabaha la hiigsanayo laguma gaaro waxaan ka ahayn sabr qof u sabray adduunyada dadka guusha gaareen arkayna iyo dadka asxaabta marka laga sheekeynayo waa dad sabrayo sabr bay ku gaareen wax walba ay haystaan sabr bay ku gaareen darajo kasto ay joogan wixii aakhiro ay qabanaysidna sabr u yeelo walaal adduunyadaadana hadaba sabr u yeelo hadii aana darbi yar jiiri karin waxba ma xaqiijin kartid iska dhaaf danaha ummadee dantaada ma nidaamsan kartid ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri kaashada sabirka iyo salaada xaalad kasto ku soo wajahda dad gaashatid aad kaashatid guul bad gaari in la oran jiray Timur Link oo kamid ah boqortooyooyinka hore ayaa wax lagu leeyahay maalmaha kamid ah ciidan watiba la soo jabiyay kadib isagoo aan waxba hayn ayuu god iska galay oo quusa dabadeed wuxuu arkay quraanjeer oo dhagax fuulaysa kadib ay kortaba way ka soo dhacdaa waxay kortay 16 jeer kolba si isku gudeysay way ka soo dhacdaa way jabtaa way ku celisaa markii 17aad sida ay ugu noqonaysay ay ka gudubtay boqorka ayaa yiri ninkii boqorka yiri
mar baa aniga la soo jabiyo oo waan isdhiibaya quraanjana 16 goor bay jabtay oo haddana aan isdhiibin buu ku leeyahay marka wuxuu yiri then I will do another time waan mar labaad aniguna aan ku celiyo aan sameeyaa uu ku celiyay uu guuleystay oo wuxuu jabiyay dad badan oo tataarkii baan u jeeray awood badan aynu garanay hadaba inaad guul gaadhido waxa u baahantahay ku celcelin baa u baahantahay hadaba si aad sabirka aad u bartid naftaada la kaali qodobadan guulna aad u gaadhid waa asbaabaha sabirka aad ku gaadhsid qodobka koobaad ka sabir dhammaan ficilada xaraanta ama dambiga wixii ilaahay ka xaraantinimeeyo waa waxay dhibaato kugu jirto ka sabir faraha iska qaad laba ku sabir adkaysiga fulinta amarada waajibka ilaahay wuxuu kugu adoonsaday ku sabir qodobka saddexaad ku sabir oo adkaysi u yeelo dhammaan marxalad kasta oo ku soo wajahda oo ka baxsan ku dhiirisho awoodaada qof ahaaneed sida xanuun faqri iyo wixii lamida qodobka afraad ku sabirsi naftaada amalada wanaagsan iyo cibaadaysiga Allah subhanahu wa ta'ala qodobka shanaad ku sabirsi naftaada inaanay qaadin talaabooyin aargoosasho ah oo iska caafi dadka wal caafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin dadka iska caafi qodobka lixaad la imow sabirka lagaga fogaanayo in la tuugsado dadka oo noqo qof xisaabtama oo noqon qof aan ku xisaabtamin dadka kale gacantooda waxa ku jira dadka kale markaad wuxooda aad ay gacantooda ugu jira aad iska deysid way ku jeclaanayaan marka waana asbaabaha guusha lagu gaaro weeyaan sabirkaasi marka waa in laga helaa hadaba qodobada kooban waxaan ku soo koobaynaa inagoo xaqiisa siin sabirka waxaan ku soo koobaynaa sabirka haddii aad marka la timaadid sabirka iyo qodobada aan soo dhigay ee aan idin wadaagay adduunyadaadana guul baad gaari aakhirana guul baad gaari horaan soo sheegnay aakhirana ma goob wax laga shaqeysta maaha wixii aad adduunyadaada aad ka shaqeysatun baa aakhira wax ku goynaya qodobka labaad ee akhlaaqda ayaan galeynaa akhlaaqdu horta waa dhaqan uu qofku ka barto deegaanka uu ku xeeran yahay ama isagu iskii naftiisa uu u curiyo ama uu ka dheehdo diintiisa uu aaminsan yahay akhlaaqdu waa shay aad u wanaagsan oo in badan oo inaga mid ah ka maqan waayo diinteenaba waxa loo soo dejiyay in dhamaystirto akhlaaqda tiga wanaagsan marka dadka ugu wanaagsan ay noqon lahayn haddii akhlaaqdeenu ay dhamaystirantay dad badan oo inaga mid ah akhlaaqda tiga wanaagsanada ka maqantay waxyaabo badan baan akhlaaqda soo hoos gala sida dad la dhaqanka shaqada dhimrinta hadalka iyo hanaankiisa wanaagsan waa astaan wanaagsan oo qofku naftiisa u horseedi karta weeyaan maxaad uu horseedi karo isagu waa astaan wanaagsan isagu qofku naftiisa uu horseedi karo akhlaaqdu waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amaanay nabi maxamed oo aatu saalihiini khayru khalqillah wuxuu aamid dadka ugu akhlaaqda wanaagsan uguna macaamilka fiican haddii aan isku dayno inaan ka hadalno akhlaaqda barnaba horta xaqeeda ma siinayno laakiin waxaan halkan ugu wadaagayaa qodobo aad haddii aad samaysid aad akhlaaqdaadu sare u soo kacayso guulna aad gaarsiid adduunyo aakhiraba horta marka koobaad fikir wanaagsan iyo filasho fiican baa laga baahan yahay iyo laab xaraan qofku waxa uu wanaagsan inuu markasta dadka uu kale u ka fisho wanaag shakigana uu ka fogaado maxaa yeelay dabeecadaha wanaagsan waxa kamid ah malaha fiican ee dadka laga fisho qodobka labaad samafalka qofka wanaagsan ee meel kasta uu tago horta qofka wanaagsan meel kasta uu tago samafalkiisa ma joojiyo qofkii wanaag sameeya xumaanta ayay ka dhowrtaa dhibaatadana way ka hor istaaga oo wanaag dhibidima asiba baa leeyiri ilaa waxa gacmiina ku kasbateen mooyaan marka samafalka wanaag kale buu ku soo jeediyaa wanaag samafalka aad ku dadaashaa qodobka saddexaad xiriirinta qaraabada hadda la timaadid qof akhlaaqdiisu dayib ay tahay bad noqonaysaa waa mid kamid ah dhaqamada uu ilaahay subhanahu wa ta'ala u jeceliyay waxaana lagu helaa cimri dherer iyo xoolo badan baa lagu helaa marka qaraabadaadii baad xiriirinaysaa ma fiican tahay inaadeer ma fiican tahay hooyo sidee tahay walaalo xaaladaada ka waran axwaashooda ogaanaysa iyo xaalkooda ogaanaysa bal ka waran waxaad ku helaysaa cimrigaagu Allah kugu barakeeyo iyo xoolahaagu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xoolo kugu daro oo aad guul baad ku gaarsaa adduunyada iyo aakhirada waxaas aynu soo sheegnay dhamaantood midna lacag lagu weydiin maayo ee waa adiga oo deeskabow qodobka afraad ballanto la dhowro waa mid kamid ah astaamaha qofka muuminka lagu garto ballanto ma jabiyo qofka muuminka wax walba ay ku dhaafayaan oo ku khasaaray macal kulligeena waan ognahay raganimo iyo ballanka bax inaanay meel isla fadhiyo raganimo bimaana geesnimo iyo wanaag iyo ballanka bax inaanay meel islood inaanay meel wada yaalin qodobka shanaad qofka waxa ku haboon waa qodobka shanaad afku salaada qofka waxa ku haboon inuu salaamo qofka uu garanayo iyo ka aanu garanayn
nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ee bahayeele waxa uu ina faray inaan salaanta faafino qofka in garanayo keenan garanay bayna salaano maanta inay keenayno wax salaamaano qofku garanayo muslima qof kala daw iska dhaafa laakiin waxa loo baahan yahay qofka aad garanaysid iyo kaanad garanayn ba aad salaantid sidaana nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay qodobka lixaad sadaqada qofka akhlaaqda wanaagsan sifooyinkiisa waxa kamid ah sadaqada oo siiyo dadka faqiirka ama dadka waxba haysan iyo kuwa kale oo baahan maxaa yeelay qalbi dahaba ayaa Allah ku manaystay qofka wax bixinta badan waxa uu og yahay in sadaqadu ay kamid tahay qofkaasi amalada ugu wanaagsan ee Ilaahay jecel yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ugu dhawaanaysa aradiisa ay ka qaboojinaysa marka sadaqada in la kala balagaga baahan dadka akhlaaqda wanaagsan waa astaamahooda marka waa inaad sadaqada ku dadaashaa qodobka toddobaad ceebaha dadka oo aan la faafin dadka akhlaaqda wanaagsan la ceebaha dadka ma faafiyaan surooda way u hayaan waxay uga sheekeeyaan way u hayaan waa sifooyin badan horta dadka ka maqan in walaalkiisa sirihiisa aan faafin gadaashiisana aan ka hadlin waa astaan ay leeyihiin dadka qiimaha badan islaam istaahila in la ixtiraamo dadka wanaagsan ee bulshada qiimaha ku leh waa dadka kala sirahooda aan faafin weeyaan marka cidii wax ku sheegata waa in sirtiisa sidii ugu haysaa qodobka sideedaad waalidka oo loo samafalo dadka oo dhan horta way nicibin caasi waalideenka qofka caasigana waa mid akhlaaq xun weeyaan wuxuuna istaahilay erayay bixino inta ka culus oo waa qof xumaantiisa aan la tilmaami karin weyn qofkaasi markaas aad noqotid qof akhlaaqdiisu wanaagsan tahay adduunkaaga aad u liibaantid aakhirana aad u guuleystid labada daaroodba waa inaad waalidka u samafsha bal ma lacagba waalidka u samafal balgulay qodobka sagaalaad hadalka iyo carabka qurxan qofka akhlaaqda wanaagsan hadalkiisa waa wanaagsan yahay dadka wanaagooda waa ku amaana qofku xumeeyo waa uu qoslo waa wanaajiya noocyada akhlaaqda aad bay u badan yihiin lama soo koobi karo waa mid kamid ah sabirka iyo dulqaadka iyo wixii lamida maxaa ka qurux badan in aadanuhu noqdo qof hadaba akhlaaq wanaagsan isku dhamariya isku nasteexay uu liibaana adduunyadiisa iyo aakhiro wax ka wanaagsan sidaas ma jiraan inuu noqdo qof akhlaaq dayiba leh hadaba waxa loo baahan yahay qodobadan aynu soo sheegnay ee akhlaaqda iyo sabirka la xiriira in nafteena ku dabaqno si aynu guuleysano adduunyadeena iyo aakhiraba wax lacagana inoogama baahna waxa kale loo baahan yahay inaynu u dul qaadano dadka wixii dhibaatooyina ee inaga soo gaara barnaamijkeena waxaan ku soo koobayaa intaas talaabooyinkaasna aynu dabaqno inta ku kulmi doono xalqad xigta assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh